daawadayaal waxaan hoyga magaalada Qardho ee loogu soo raray aan ku booqday Nasro Xasan Ibrahim oo kamid ahayd dadkii musiibadii daadadku ku soo fatay magaalada Qardho saameynta adag geystay. Nasro waxay musiibadaas ku weyday saddex kamid ah caruurteedii waxayna nala wadaagaysaa xanuunkii yani qaabkii ay biyahaasi ay fatahaadaasi ay u saameeyeen. sidoo kale waxay nala wadaagaysaa qaabkii ay guriga ugu soo galeen iyo xaaladii xiligaasi. Nasro ay ku soo dhawaatay telefishinka STN waxaan nooga warantaa qaabkii ay soo galeen walaal biyuhu waxay soo galeen ciyaalka yaryarka aan ma moodeen ma taqaanta masiibadan walaal inay dhacayso wax kastana Ilaahay baa qadarta Ilaahay baa qoray wixii qoran Rabbi baa qoray waan soo jeeday walaal waxay sheegtay biyuhu daaqadaha inaga soo jabiyeen ciyaalka yaryarka buu walaal la qaaday kadibna biyuhu 3 mitir walaal nagu maray waxay sheegtay albaabka nagu soo jabiyeen deyrkii way guriyay way nagu soo dumiyeen biyuhu walaal saasay noo qaateen Ilaahay baa ma taqaanta anigana i badbaadi xaafada quriyad walaal weeye saddex ciyaal saas oo la tageen aniga Ilaahay baa iga badbaadiyay walaal biyaha albaabka fudhay albaabka ma furin albaabka walaal jubbu hay markii dambe xoog biyaha deyrkii wixii isku yimid boo albaabka fag soo yiri nagu soo jabiyeen kadib oo marka xiliga biyuhu gudaha ku jireen biyuhu gudaha way ku jireen biyuhu ma taqaanta meel ay maraan marka way biyuhu guriga nagu garaacay 3 mitir nagu gaareen kadibna waxay sheegtay deyrarkii oo dimay biyuhu nagu soo celiyeen biyuhu hadii 3 mitir gaareen caruurta xagee ku haysay caruurta waa la kacaa ku fayay iyagoo 3 mitir sawga marna aan waan hafanay marna walaal ayagii baan gurayay oo kadib sidii ana u guraya bay waxay sheegtay kadibna albaabka nagu soo sidii walaal biyuhu noola bixeen oo bad ciyaakina ku dareen anigana Ilaahay baa iga badbaadiyay markay biyihii la baxeen albaabka lagu soo jabiyeen ciyaalkina la baxeen adiga marka xagee aniga waxaan ku badbaaday xarig deyrka kale baartada kale deyrkii kale baartadiisa kale xarig ku xidhnaa oo reer xarig ugu xidhnaa baartadayda kale ku badbaaday halkaas habeenkii oo ku kacan ku fayay Ilaahay baa ma taqaantay qadaray ya soo gaaray marka islaan Ilaahay baa soo gaarsan oo qeyliyay oo qeylidaaliyay cid ii soo baxday markii biyihii yaraadeen damcayn la moodin la soo gal kara markaas la soo galay markaas walaalaha kale igu badbaadiyay ani iyo dadkii muslimiinta kale isaguna nala dhashay isla deganeen islaan ayagana halkaas lagu badbaadiyay oo laga guray xilligii okay guriga kaliya miyaa ku sugnaa markii u horeysay guriga degana kaliya waa ku sugnaa laakiin baartada kale reer kale walaalaha deganayo ciyaalka ehelkooga degana laakiin ayagu waxa ma noqonin dad waxa kama noqonay guriyo dumay mooyeen marka ugu dambeyntii cid kula soo xiriirday ma jiraa oo dad walaal ila soo xiriir shalay waan ogaa laakiin waxay sheegtay cid sidii oo kale ii timid hadda sida hor faamo bimiyo oo kale iyo gabdhaheeda iyo sidaanka Ilaahay mooyeen ma arag cid ii timid oo sidii oo kale iigu timid okay wali cid kuma iman ciidimay wali walaal ciidimay manin hagaag daawadayaal sida u jeedaan wali cid soo booqatay oo dareenka la qaybsatay ma jiro. waxaan rajaynaynaa in bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay gabadhaasi ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay la qaybsadaan dareenka oo u gargaaraan. Mustafa Sahil Maxamed Xasan wararka warbaahinta Star magaalada Qardho.